waa habeen saqdi dhexe caalanka ka samaysan buluuga dooga iyo cadaanka iyo xidigta casaanka waxa uu tilmaamayaa jamhuuriyadda Djibouti hore loogu yaqaanay territoire Anfar ee Dazisa waxaana uu noqday dalkii ugu dambeeyay gumaysiga Faransiiska ku yaala qaaradda Afrika waxa uu sidoo kale noqday dalkii 49aad ee hanta madax banaanida ee ku yaala qaaradda Afrika halgankii xurnimo doonka ay ku kacday qaaradda Afrika Djibouti kamaysan harin dalka waxa u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana xorriyadiisa qaatay 27 Juun 1977 waxaana la tilmaamayaa waxay ahayd xilli taariikhi ah oo dalka loo baahnaa iyadoo dalka uu isku diyaarinayo xuska 40 sano guurada ka soo wareegatay waqtigii gobonimada aynu qaadanay in la dhiso hay'ado xoog badan oo garab taagan xukuumadii ugu horeysay dalka uu madaxweynaha uu ka ahaa Allah u naxariistay Alxaaji Xasan Guuleed Abtidoon aabihi qaranka waxa uu lahaa siyaasad cad oo lagu horumarinayo dalka iyo dadka ujeedaduna ay tahay in la casriyeeyo dalka iyaga oo laga gudbayo dhaqankii gumaysiga Faransiiska isla markaasina la horumariyo dhaqanka dalka qof kasta waxa uu isweydiin karayaa 40 sano kadib jamhuuriyadda Djibouti maxaa uu qabsoomay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin horumarinta ganacsiga wadooyinka iyo waliba kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ka hirgalay jamhuuriyadda Djibouti sidoo kale waxa dhismayaasha aqoonsiga iyo kor u qaadida dhaqanka dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa si wada jira bulshada ka soo jeeda waxaana loogu dareemayaa inay wadaagaan dadka ku nool dalka jamhuuriyadda Djibouti luqadaha iyo waliba dhisida macallimiinta waxbarashada waxaana ay ku dadaalaan inay sameeyaan af u gaara oo isku fahmaan bulshada ku dhaqan jamhuuriyadda Djibouti waxa uu dhigay ilaahay meel istiraatiijiya shacabka jamhuuriyadda Djibouti ayaa isku diyaarinaya xuska 40 sano guurada ka soo wareegatay markaynu gobonimada qaadanay taasi oo mid taariikhi ah iyadoo waliba ay barbar socdaan horumar kala duwan oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waliba wadooyinka oo lagu horumarinayo dalka isla markaasina uga qayb qaadanayo horumarka ka jira qaaradda Afrika